sheekadii cusbad libin jacayl qaybteedii 3 cali kaar iyo walaalkii iyaga oo aan isla hadlin ayaa ay maqaayadii gaareen la yaab ayay cid kasta ku ahayd in odayga uu warka wiilkiisa la soo hor istaago waxaana markii in cabaar ah la fadhiyay maqaayada ayaa adeer Axmed ku yiri Axmed odaygan ma wax ayaa si ka ahaa maxay tahay sida uu noola hadlay cali kaar wallaahi waa la yaabanahay waa odayada hadalka wiilashooda ku shaqeeya balse waxay yaab iigu ah reer aan gabar ka qabo haddana aan dhib iyo dheef ila wadaagaynin aniga aan ula wadaagaynin wallaahi waa wax ii dhimanaa Axmed dhima lahan waa loo dadbadsanaa sida looguma harayo aabi cali kaar maya waxa ugu yaraan igu filan inuu meherka idmay umana socono ilaahay kan aan dhalay ha ka dhigo midkii wax dhaqada ileen yaasiin waa mid aan wax isku tareenin Axmed waa ku qasban yahay ileen maanta mas'uuliyad ayaa saaran aabi cali kaar insha Allah yaasir khayr iyagoo halkii fadhiya ayaa waxa u timid hooyo Batuulo oo markii ay aragtay in si ay u wada fikirayaan ayay ku tiri hooyo Batuulo hay cali kaar maxaa jira miyaadan lagu bixin arintii aabe cali kaar iminkan ka socona hooyo Batuulo haye maxay tahay fajaca idinka muuqda micnaha aqbar wanaagsan kalama kulmin miyaa mise waa soo weyseen adeer Axmed maya Batuuloy waan la kulanay balse reerka in aan la sii macaamilno ma rabaan hooyo Batuulo kuma fahmin adeer Axmed wallaahi xaalkiisa odayga ma fahmin balse meherka waa inoo idmay hooyo Batuulo cali kaar maxaad la aamusan tahay maxaa ku helay aabe cali kaar wax kale lama aamusni balse waxaan rajaynayaa in wiilkaaga doqonka ah inuu gabadha dhaqdo ileen gabadha meel ay ku noqoto ma jirto oo darteen ayaa loo soo tuuray hooyo Batuulo ma aqaan sababta aad wiilkaaga ugu kalsooneen ma qabo sida aad u haysato inuu yaasiin yahay ee ku kalsoonow adeer Axmed wax kale walaalkay ulama jeedo ee waxa jirta in reerka gabadha ay gabadhooda sinaba u dooneenin oo ay darteen u faquuqeen maanta falis gurigii waalidkeed boos uguma furma hooyo Batuulo insha Allah khayr ayay wax walba noogu dhamaan doonaan waan huba col kasta maalin ayaa laga dawoobi doonaa ee aan u ducayno caruurta adeer Axmed ha waa sidaas waan sii baxayaa wixii soo kordha caliyow aan maqalno aabe cali kaar haye walaal Batuulo wax walba waa xaqiina cid aad ku tashato ma jirto ee maxaa go'aansatay hooyo Batuulo aniga markii horeba cid kuma tashan reerkaas wax walba waan ka filanayay gurigii reer Faarax maaye ayaan qol iyo barsad kaga soo kireeyay waxaana hadda kugu socday habla ayaan xaafada ka soo waday oo alaabta ila dooraya marka aniga marnaba uma fadhinin aabe cali kaar insha Allah kulay tala adiga ayaa ku saaray haddana tag baqaarkii muuse kana qaado intaad u baahan tahay gabadha yaan wax loo sheegin anaga oo wada jir ah ayaan la hadlaynaa caawa hooyo Batuulo haye xaaji ilaahay ha inoo saqiro aabe cali kaar insha Allah sidii ayay ku baxday hooyo Batuulo oo maalintaas oo dhan waqtigeeda siisay in ay ka soo dhamaato wax kasta oo guriga cusub lagu qurxinayay waxaana la socday 2 hablood oo ay xaafada ka soo wadatay kuwa oo alaabta la doorayay hooyo wiilkeeda curadka aroosayay ayay ahaydee wax kasta oo farta loogu fiiqo kama baqaylin waana soo iibisay waxayna galab gaabkii ka timi suuqa iyada oo alaabta ku soo dejisay gurigii cusbaa waxayna hablihii u sheegtay in maalinta bari uusan cidna dan yeelan karin oo guriga alaabta la dhigayo habeenadii ayay hooyo Batuulo iyo aabe cali kaar si wada jir ah ugu yeereen yaasiin iyo falis waxaana hadalkii furay aabe cali kaar oo ku yiri aabe cali saaka sidii balanta ahayd waxaan u tagnay aabe warsame waa uuna naqaabilay arintii aan u soconay intii ugu yareedna waa inoo meel mariyay balse sidii aan doonaynin waa uu nagu diiday walow uu idin duceeyay falis aabe warka weli ma fahmin aabe cali waxaan
doonayay aabe in reerkaaga aan kugu celino oo inta gabar maanta laga bixiyo aan bixino oo gogoshii aabbahaana lagugu meheriyo halkaana lagaa soo gooriyo balse aabbaha waa uu diiday falis adeer waan fahmayaa waana hubay inuu aabe marnaba i aqbalaynin maxaa yeelay qadar ayaa waxan oo dhan ka dambeeya aabe cali haddaba waa uu noo sheegay in qadar uusan doonaynin inuu dib dambe kuu arko marka aabe waxba ha isxumayn annaga ayaa reer kuu ah gurigan ayaa gurigaaga ah waxna kaama halaabayo noloshaadana aniga ayaa kafaalo qaaday falis dhib ma laha waan ogahay aabe in aan cidlo joogin falis markiiba waa iska baxday waana ogeed in aysan sahlanaynin in ay reerkeeda aqbalaan haddana waa ay ka xumeen waxaase isu haray yaasiin iyo aabbihiis waxaana dhex martay hadalladan aabba cali kaar ima qali yaasiin aniga nin aan shaqaysan marnaba wax ayaa uu dhaqan karaa ma qabo waad u jeedaa gabadha aad soo xaraysatay in dartaa loo soo deeriyey weligii waxba kuma weydiisan gabadhan sidii ukuntii u dhowr yaasiin aabe waa ballantaa hana ku seexan maalin qura in aan xumaynayo aabba cali kaar dhallinyaronimo yaysan ku qaadin yayna dhicin in ay falli soo oyso maalinna yaysan tabin reerkeeda yaasiin aabe waa ballan aan kaa qaaday aabba cali kaar insha allah aniga waad igu tashan kartaa sidii ayay ku ballameen yaasiin iyo aabbihii halka hooyo batuulana ay qancin ku haysay falis oo isyara xumaysay markii loo sheegay in gurigooda aan loo celin doonin asxaabta ku xidhan waa Bari TV jimcaha dambe hadduu eebbe idna la socda qaybta kale ee 34aad insha allah share like iyo comment subscribe kana ha iloobina